dadka muslimiinta ah markay islaamnimada ka furfurmayaan siday uga furfurmi doonaan maxaa loogu hortagi doonaa islaamka si la inooga digo wuxuu nabigu yidhi latunqadunna cura alislaami curwa curwa islaamka guntimihiisa kolba mid baa sii dayn doontaan dabeetana ka dambeeyuu dadku ku sii dhegaya markay miduburtaba ta ka dambaysa ayaa lagu sii dhegi doonaa ta ugu horeeya guntanta ugu horeeya ka dhaqaaqi doontaa buu nabigu yidhi waa maamul ta ugu dambaysana waa salaada buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii salaadana laga tago dee waxba ma soo hadhin tawxiidkaaga khalal baa ku jira markaa dad salaadana ka tagto markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay war islaamka ku dhago midnaba ha sii daynina oo marka la leeyahay kaasa ugu hortagi doontaan waxa weeyaan waa markaa fasahaadaysaane fasaadka iska ilaaliya baa la leeyahay hadday xaaladdu caynkaa noqoto